ma jirto waxna kama jiraan waa war aan sal lahayn in xalay isbitaalka Martiini ay ku ruux baxday 30 qofood waxaan rabaa marka inaan bulshada u sheego in xogta ugu dambaysa ee caafimaad ee COVID-19 mar walba aad ka sugtaan aad weydiisaan wasaaradda caafimaadka ee aan la dhageysanin waxyaalaha beenta u badan ee baraha bulshada lagu soo qoro dadka sameynaayo warka aanan saxda ahayn bulshada dib ayay u keeni karaan wax faa'iido ah oo ku jirta ma jirto in dadka la sii cabsi geliyo waxaad dareemaysaan oo mar walba ku celcelinaa wacyigelinta in qofka markii uu xanuunsado ama calaamadihii uu dareemo inuu soo raadsado rug caafimaad isbaaritaan lagula taliyo kadib uu daawo raadsado siday xaaladaha kale yihiin dadka in la cabsi geliyo waa khalad qofka in laga sii dheereeyo dad badan oo waxaa jira cudurkii haaya oo aanan isbitaalada tagin dadkaas axsaan uma sameynayaan dadka beenta faafinaya argagax ay khalkhal ku ridaay balse waa ka sii fogeynayaan qofkii inuu isbitaal raadsado fadlan aan iska ilaalino wax bulshada wax u dhimaan haddaadan waxba u taraynin waxba ha u dhimin ha faafinin war aan sal iyo raad lahayn ma jirto cid u dhimatay oxygen la'aan oo isbitaal Martiini ku jirta oxygenka waa yimaadaa meelo badan uu ka kala yimaadaa marmar ciriiri waa galaa laakiin cid u dhimatay ma jirto marka waxaan ka codsanaynaa dadka walaalaha Soomaaliyeed in ay dhageystaan xogtana ay ka helaan sidii caadada ahaydna aan toos idin la wadaagi doona iyo baraheena bulshada wasaaradda caafimaadka ay kala wadaagaan xogtii ugu dambeysay waa waajib mar walba inaan ku celcelino in la taxadaro in afka la xirto in gacmaha la iska dhaqo in la kala ilaaliyo bulshada meelaha ciriiriga isugu imaanaya qatarteedeeda leedahay ilaahay ha naga haayo waxaan arkaynaa kan inuu ka xoog badan yahay kii hore baaritaanna socdo dibadda loo diray saambalo badan sida loo ogaado bal viruska naftirkiisa waxaa cad dadka qubaraada ay ku celceliyeen in isu gudbiskiisa uu aad u sahlan yahay marka waxaan ku talinaynaa in la kala dheeraado meelaha ciriiriga in la iska dhowro in nadaafadda iyo gacmo dhaqashada lagu dadaalo iyo tan ugu daran oo ah in qofka markii uu dareemo calaamadaha uusan guriga isku celinin uu taga rug caafimaad si uu u raadsado kaalmo caafimaad